saaxiibayaal inta badan waxaan falanqeynaa barnaamijyadii ugu dambeeyay inkastoo aanan wax wara helinin maalmihii ugu dambeeyay haddana waxaa laleeyahay magaalada Cape Town ayaa waxaa ku soo yaacay ciidamadii ka jiray gobollada kale ee dalka kuwaasoo dukaamada iyo wadooyinkii iska taagan oo dadka iska qabsanaba sida xoolihii waxaa ugu daran laleeyahay xaafadaha Midges Plain iyo Dallas iyo Beaver Sod iyo meelahaas ugu daran laleeyahay ilaa iyo meelo kale oo badan waa ay kalayaan oo locationo qaliiji ay kamid tahay immigrationka ayaa la socdo sharciyada ay dadka weydiinayaan kuwa kale oo dheeraad ah oo dukaanka iyo balaayo ku mashquula ayaguna waa socdaan arrimahaas ayaa maalmihii u dambeeyay aad loo hadalhayaa dhanka meelaha ay Soomaalidu ku qaxwayso ogyihiin war laga waayo Soomaalidu meelaha ku qaxwayso isbuucan aad waxaa loo galay xaafadaha Midges Plain iyo qaliiji oo labadaba immigration iyo ciidan iyo waaxa caafimaad wada socda ay galeen aan heleynay muuqaaladan waxay sheegeen in dadka si arxan darro ah loola dhaqmayo meelaha qaarna aan booqanaba dadku wax wanaagsan kamiisa sheegaynin immigration oo haysta dadka mujeeda kii sharci haysta ee kii kaleba waxaa loo wada jiraa wada feel ujeedino waxaa waaye bayka shinkeeri maanta waa lis haysta oo lisku dhegayahay halis ilaalshahee kan ayaa waxaa laleeyahay wuxuu kasii laba kacliyayba sidii uu ahaa dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay ee 2024 oo inta badan aad loo waxyeeleeyay ganacsiyo badan oo ku yaalla Eastern Cape iyo KwaZulu Natal iyo Gauteng iyo meelo badan oo dalka Koonfur Afrika ka mid ah bas markaan ayaa la isla soo gaaray dhankan Cape Town oo inta badan uu aad uga yaraa macnaha dhibaatada inta badan ka dhacaysa dalka intiisa kale sanadkii lasoo dhaafay waxaa la arkayay isbuucyadan xataa kalaabiyo iyo goobo ganacsiyo waaweyn oo magaalooyinka ku yaalo la dabakadinaho la xiraho ganaax lagu qabana Midges Plain waxaa la wadaago dhibkan qaliija iyo deegaano kale oo Dallas ay ka mid yihiin iyo maxaan ku raaya Philippi iyo meelahaas ay ka mid yihiin dhammaantood waxaa la sheegayaa in xataa Beaver dhammaantood waxaa la sheegayaa in dadku ay qabanayaan dukaamada ay macnaha wax iska adab darra adigoo sharciga ka baxsan ay ku dhaqmeen waxaa la sheegay locationada qaar inay tagaan ciidamada dukaanka ay fiiriyaan inta wasaqdan maxaa waa boxka meesha yaalla maxaa waa kan maxaa ganaax warqad been in lagu qabto lagu leeyahay lacag hadda inta dhig oo marka dambe qaabay dadka ku dhacaan ilaa habeenkii waa socdaan qofka dukaanka sharciga aan lahayn kadaali baawarka inay ugu xirtaan ay iska wataan ay leeyihiin lacag soo qabadii kale ma baxsanaysid marka waa dhac iska caadi taasoo fuujignaan aad u badan u fiican in laga qaato inta badan Soomaalidu dad fuujigan maahan oo kii sharciga lahaa adeegu iska aadaa mareegu iska aadaa balfil iska dhex fadhiisana kii sharci la'aanta looga tagaa waana laga adeegana ogda marka inta badan waxa fiican dadka aan sharciga lahayn inta badan xilliyada dadka ay socdaan horta waa xilliga dadka ay kala maqan yihiin habeenkii xilliga dukaanka la xirrabo subaxii ala saydii iyo xilliga barqadii ah oo iska cidlada oo dadku iska fadhiyaan oo Soomaalidu ay telefoonada ku mashquusho oo qadka iskaga jiraan iyo aad u socdaan xilliyadaas marka waxay ku fiicnaan lahayd qofka aan sharciga lahayn in dukaanka laga fariisiyo oo qofka sharciga lagu shaqeeyo xilliyadaas oo kale ama inta badan dukaan horta waa qalad been qof fariis looga tagay xilligan hadda lagu jiro waxaan ku yiraahdaa nimankan iska socdaan haddii rabo kuwa si sax sharciga u dabaqaa imaan karo iska xiraayo marka arrimahaas ayaa aad ugu badnaa soo badanaysa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa la arkay dukaamo laba mar iyo saddex mar la tagay ayaa mararka qaar aan xog ku helnay kaashikeeriyada waaweyn meelaha dadka laga qabtay u badan ayagu haddii aad ka foojignaan karto ka foojigno ama xilli hore aad tegi karto sidoo kale meelaha waxa laga qabanaya waxaa kamid ah meelaha kaaltakisyada oo shidaalka looga shubto dukaamada hortooda goobahaas oo dhan meelaha dadka isugu yimaadaan oo ka adeegdaan aad bay u raadiyaan immigration waa socdaa asagoo immigration shaqadiisa si sax u qabsanaa laakiin booliskan iyo law enforcement-kan iyo ciidamadan kale oo dhibkooda baabuurka adoo leysan iyo waxaan wadin marmarka qaar iska qabsanaa waa ku xirayna ku dhawa baabuurka sharciga ka foofsanaa waxaasoo dhan foojignaan dheeraad ay u baahan yihiin waxay kaloo kasoo kordhan dabcan waa raadin doonaa waan isla falanqeyn doonaa hadduu allah awood leed maad baan wasantiin saxbiga